dad badan ayaa soo weydiiyay sida mobilka loogu sameeyo muuqaalada ama video editor. Daba programkan maanta ka hadlayno waxa la yiraahdaa KineMaster. KineMaster waa video editorka ugu fiican ee mobilka lagu isticmaalo. Hadba nidaamka aad isticmaashid storekiisa ayaa kala soo degaysa adigoo sidoo qoraya KineMaster. Programka markii aad furtid ee open aad dhahdid halkan ayuu ku keenayaa. qaybtan waxa galaya cajaladaha muuqaalada aad hore u sameysay. laakiin waxa cusub halkan ayaa laga bilaabaa adigoo taabanaya calaamada balaaska. halkan ayuu ku keenayaa. qaybtan waxa ka dooranaysaa isteelka muuqaalka aad sameynaysid. kan waxa loo isticmaalaa YouTube, kan waxa loo isticmaalaa TikTok iyo History, kan waxa loo isticmaalaa Instagram. kan YouTube-ka ayaan dooranaynaa. hadda wuxuuna keenay meesha oo faaruq ah. hal option ayaa ku banaan inaad soo gashatid sawirka background-ka ee video-ga aad ka sameyn lahayd. halka kore oo ay media ku qoran tahay ayaad ka soo gelinaysaa. halkan haddii aad aragtid wuxuu ku keenayaa gallery-ga mobilkaaga. hadda aniga folder-kan ayaan ku dhufanayaa si aan u soo qaato sawir aan ka dhigto background. waxa laga yaabaa inaad isweydiisid halka aad ka keenaysid kalarada sidaan oo kale ah. asxaabe waxba ka walwalinina, folder-kan ay kalarada ku jiraan programka ayaa wata. hadda aniga waxaan dooranayaa kaas ugu horeeya. muuqaalkan wuxuu ku socdaa qofka editor-ka ah ama horey wax u soo sameeyay ama muuqaalo u soo sameeyay oo ay wax u bilaaban yihiin. laakiin haddii aadan weligaa video sameyn ama aad wax edit gareyn oo aad tahay sagxadda, fadlan waxaad aamintaa inaysan jirin wax adag. wax walbana aad adigu isbari kartid. balse haddii aad rabtid wax walba inay kuu fududaadaan, waxa ogaataa shay walba wax laga bilaabaa basic ama asaasiyaadka. videogu waa sawir lagu daray cod, lagu daray qoraal. waa intaas. wixii ka soo hara waa edit iyo effect iyo waxyaabo yaryar. hadda videogan aan idiin soo gudbinayo wuxuu hordhac u yahay koorsooyin aan soo wado oo ah video editor. fadlan si aad koorsooyinka ula socotid xilliga aan soo gelino, channelkayga subscribe saar, page-kana follow si ay kuu soo gaaraan casharada aan soo gelino. haddii aan u soo noqono casharkeena hadda, asxaabi programkan waa mid aad u sahlan. wax walba sidan ayaa u jiidaysaa. hadda sawirka aan background-ka soo gelinay ee videoga inoo haynaya waa kaas. step-ka ugu horeeya aan qaadayno waa inaanu soo gelino cod. codka halkan ayaa laga soo geliyaa. labada qaybood ee ugu horeysa waxa ku jira codad uu wato programku. laakiin codadka iyo muusiga adiga telefoonka ku jira waxaad ka helaysaa kuwa hoose. macnaha labada hore wixii ka hooseeya. codka aad rabtid inaad ku shaqaysid waxa ka dooranaysaa calaamada balaaska. codka markii aad soo gelisid halkan ayuu imaanayaa background-ka hoostiisa. wax rabtid ayaa ku sameyn kartaa, waad jiidaysaa. programkan wuxuu ku fiican yahay wax walba sidaan ayaa u jiidaysaa. waad jaraysaa, waxbaad ka saari kartaa, waad koobin kartaa. ka soo qaad codku inuu ka yar yahay dhererka muuqaalka. hadda codkan waa caadi, wuu leeyahay muuqaalka. laakiin markii uu sidaa u jeedmi waayo, macnaheedu waxa weeye inuu yar yahay. marka waxaad sameynaysaa haddii aad rabtid inaad muuqaalka la keensid, loop ayaad ku sameynaysaa. markasta waxa uu raacayaa muuqaalka bilow ilaa dhammaad si automatic ah. haddii muuqaalka aan durkiyo, macnaha looptaas faa'iidada ay leedahay baan idiin sheegayaa. toolkan programmo badan ayaan lahayn. waxaa kaloo isagana muhiim ah buttonkan hoos ku yaal. haddii aan taabto wuxuu iga saacideeyaa inuu igeeyo meesha muuqaalku uu ka bilaabmo iyo meesha uu ku dhammaado. haddaba hadda waxa u gudbaynaa step-ka xigay ah inaan sawir soo gelino. waxa muhiim ah inaad ogaato sawirkan hadda soo gelinayno waa layer ee maaha background. layerka halkan ayaa laga doortaa. layerka marka aad taabatid media kor ayaad ka arkaysaa. laakiin qaybtan weyn ee media halkan inoo yaala background-ka ayaa laga soo geliyaa. balse media hadda aan soo gelinayno waa layer. sida caadada ahna wuxuu ina geenayaa gallery-ga mobilkeena. faylka uu programku wato ee kalarada ku jiraan ayaa waxaan ka soo qaadanaynaa sawir. balse markan waa inaanu dooranaa midab ka duwan kii hore si aan u kala garanno background-ka iyo layerka. layerka iyo background-ka waxay ku kala duwan yihiin. background-ku waa background, waxba kuma samayn kartid. laakiin layerka waa jiidaysaa, waa weynaysiinaysaa, waa yaranaysaa, marba dhinac ayaa u jiidaysaa. programkan KineMaster marka isticmaalaysid, waxaad samaysaa background-ka hal sawir ka dhig, waxa kalena waxa ka dhigtaa layers xataa haddii ay muuqaal leeyihiin. layerka aad editka ku samaynaysid, markaad taabatid ayuu optionkiisu kaaga soo baxayaa dhinaca midigta. laakiin markii aad taabatid meesha bannaan, ma arkaysid wax option ah. waayo shaqo ma haysid, waxbaad jiidaysaa kaliya. meeshaan bannaan haddii aad taabatid oo jiidid, waxaad jiidaysaa videoga oo dhan. layerka aad rabtid inaad jiidid waa tuujinaysaa. gariir yar ayaa dareemaysaa, markaasaad dhinaca rabtid u jiidaysaa. hadda waxaa u gudbaynaa step-ka xiga oo inaanu soo gelino qoraal. meesha qoraalka laga soo geliyo waxaan ka helaynaa qaybta layerska. asxaabi programkan waa program aad u fudud. wax walba aad ayay u fudud yihiin. haddii aad programmo hore isticmaal jirtid waa garanaysaa sida farta loo qurxiyo. hadda already videogii sidan ayaa ku dhammaynay. waayo waxaan isku rakibnay sawir, cod iyo qoraal, kadib video ayaan ka samaynay si aan u fahanno qaabka uu programkan u shaqeeyo. derbigan bidixda tooliska ugu muhiimsan ee kuu saaran waxaa ka mid ah meesha wax laga dhilaydo iyo meesha wax laga soo celiyo, meesha layerka laga koobiyay iyo meesha codka ka arkaysid.
haddii aad rabtid muuqaalka inaad adoo codka ku duubatid codka halkan ayaa laga duubaa mikrofoonka ku sawran yahay codka aad programku duubtay wuxuu kaga duwan yahay codadka aad soo gelisay midab buluug ayuu qaadanaya halka kuwa kale ay qaadanayaan cagaar sidoo kale codka aad duubtay wuxuu noqonayaa laayarada ka mid ah dhinaca rabtay ayaa u jijiidi kartaa ugu dambeyntiin exportiga waa ka cornerka kore ku yaala feature-kan hadda isticmaalayo uu ka duwan yahay kan aad adigu isticmaali doontid ma lahan 4K 1080 ayaa ugu badan waayo aniga kan isticmaalayo waa olday haddii aad Soomaaliya joogtid kan ayaa ku anfacaya asxaab badan way dareemayaan sababta kan u isticmaalaysid si aad ugu xirnaatid casharada ka baxa channelkeena fadlan subscribe dheh si aad u heshid cashar walba oo aan soo gelino muuqaalka like saar share gare oo la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan mahadsanid